بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد بره مدن ياشا يمروين كهالكن شوغا iyo warbaahinta iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan si rasmi ah u bilaabanaynaa munaasabadeena magacaabista golaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waa golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. marka waxaan ku bilaabaynaa aayadaha Quraanka Kariimka ah. Maxamed Mursal Khaliif ayaa inoo akhrin doona aayadahaas. Maxamed soo dhawow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. maxamed khaliif aad buu u mahadsan yahay mudanayaasha iyo marwooyinka Soomaaliyeed ee munaasabadan ka soo qayb galay dhammaantiinba mar kale salaan wacan xilli kulul ayaa lagu jiraa oo qorrax baa nahaysa marka insha Allah waxaan maaragtay isku dayi doonaa in aan fududeyno marka waxa sharaf ii ah maanta in munaasabadan magacaabista ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha mudane Xamse Cabdi Barre aanu si rasmi ah maanta halkan uga daahroogayno. marka waxaan jeclahay in aan ku soo dhaweeyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre bal inuu halkan ka jeediyo kelmadiisii inta aanan u guda galin qaybaha kale ee barnaamijkeena. soo dhaw ra'iisul wasaare. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مدنيال iyo marwooyin
dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaa sharaf weyn ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 2 bisha 8aad 2022 hortiina soo istaago si aan idinku soo bandhigo golaha xukuumadda cusub ee aan hogaamin doono insha Allah mudanayaal iyo marweyn walaalayaal dadkeenu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la dhacayaan amni darro iyo abaaro daba dheeraad marxaladan adag waxaa laga maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta mudanayaal iyo marweyn walaalayaal wada tashi dheer oo qaatay dhowr iyo 30 maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya guddoonka labada aqal ee baarlamaanka xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aan u soo xushay kuna soo xushay aqoontooda khibradooda kartidooda iyo hufnaantooda kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda waxaana rajaynayaa in ay ku guuleysan doonaan in ay Soomaaliya cusub ay dhaba cusub u jeexaan ayagoo aan aaminsanahay in ay hirgelin doonaan barnaamijka weyn iyo aragtida weyn ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo halku dhagiisu yahay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si degdega u horkeeni doono ugu dambeyn waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay u gudato waajibaadka qaran ee culayska badan aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullah intaas kadib waxaa insha Allah bayaanka magacaabida inoo akhrin doona afhayeenka xukuumadda mudane Farxaan waa mahadsan yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre khudbadaasi qiimaha leh ee uu soo jeediyay ee ku tacalluqtay muddadii uu wada tashiga dheer uu sameeyay ra'iisul wasaaruhu si markaasi uu u soo dhiso xukuumaddan maanta aynu ku dhawaaqi doono oo ah xukuumad tayo leh sida ra'iisul wasaaruhu uu sheegayna ummadda Soomaaliyeed ka samata bixin doonta dhibaatooyinka hadda haysta marka mar labaad sharaf bay tahay maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 2 bishan August in aan liiska halkan uga dhawaaqo golaha xukuumadda ama golaha wasiirada Soomaaliya magacaabista golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xamse Cabdi Barre markii uu arkay qodobka 97 faqradiisa 3aad ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 98aad faqradiisa xarafka a iyo ba ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 100aad xarafka a iyo ba iyo a ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay ra'iisul wasaaruhu howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya markii uu tixgeliyay madaxweynaha talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka
markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabista golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay qodobka koowaad xubnaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaana ay kala yihiin sida soo socota: mudane Saalax Axmed Jaamac, ra'iisul wasaare ku-xigeen; mudane Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur, wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta; mudane Xasan Macalin Maxamuud, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka; mudane Axmed Macalin Fiqi, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta; mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wasiirka wasaaradda maaliyadda; mudane Cabduqaadir Maxamed Nuur, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga; mudane Abshir Cumar Huruuse, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga; mudane Faarax Sheekh Cabduqaadir, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare; mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beene, wasiirka wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha; Generaal Cabdulaahi Axmed Jaamac Elkajiir, wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda; Marwo Fardowso Cismaan Cigaal Dhoore, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo cirka iyo dhulka; mudane Jaamac Xasan Khaliif, wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta; mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelaay, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa; mudane Jibriil Cabdirashiid Nuur Xaaji, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha; mudane Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir, wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta; Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye, wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka; mudane Dr. Cabdirasaaq Cumar Maxamed, wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta; mudane Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe, wasiirka amniga gudaha; mudane Axmed Madoobe Nuunow, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka; mudane Dr. Cali Xaaji Aadan, wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada; mudane Axmed Xasan Aadan, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda; mudane Daawud Aweys Jaamac, wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska; mudane Biixi Iimaan Cige, wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha; mudane Jaamac Takhal Cabbaas, wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha; mudane Maxamed Barre Maxamuud, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha; iyo Marwo Khadiija Maxamed Almaqzuumi, wasiirka wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada. qodobka labaad, xubnaha wasiir dowlayaasha. mudane Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhaari, wasiir dowlaha madaxtooyada; mudane Xirsi Jaamac Gaani, wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha; Marwo Muumino Sheekh Cumar, wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka; mudane Ilyaas Cali Xasan, wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta; Marwo Raaxo Maxamed Maxamuud Janaqow, wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda;
mudane cabdinuur daahir fiidow wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga mudane cali maxamed cumar wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga marwo nuura mustaf guudow wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane cabdirashiid jire qalinle wasiiru dowlaha wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane maxamed cabdiqaadir maxamed wasiiru dowlaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda mudane maxamed cali cumar caananuug wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane axmed cusmaan diiriye wasiiru dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane dr sulaymaan cali xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane cabdisalaam shariif xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha genaraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta marwe aamine xasan cali wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dr maxamuud axmed maxamuud mashruuc wasiiru dowlaha wasaaradda batroolka iyo macdanta maxamed cali xagaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha amniga gudaha mudane asad cabdirasaaq maxamed wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka marwo maryan maxamed xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane maxamed bashiir cali baxnaan wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane yuusuf maxamed aadan wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane maxamed cabdulaahi faarax wasiiru dowlaha wasaaradda korontada iyo biyaha mudane dr aadam ibraahim awxirsi wasiiru dowlaha wasaaradda bey'ada iyo isbeddelka cimilada qodobka saddexaad xubnaha wasiir ku-xigeenada xukuumadda cusub ee federaalka mudane saalax shariif sayid cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta mudane axmed cabdiraxmaan xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane cabdixakiin xasan ashkir wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cabdiqafaar cilmi xaange wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdifataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdifataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka halkaan ku celiyo mudane cabdiqafaar cilmi xaange wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdifataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mudane isaaq maxamuud mursal isaaq fanax wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane axmed cusmaan ibraahim daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane maxamed cabdiqaadir cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane saadaam maxamuud cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda mudane genaraal sulub axmed firin wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane xuseen axmed culuso wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane aadan maxamed cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane cusmaan maxamed cabdi daalo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane maxamed cali maxamuud tam wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta
mudane cabdixakiim jimcaale aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mudane cabdiwahaab cabdi cumar caananuug wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane isaaq maxamed maxamuud obow wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda amniga gudaha mudane isaaq maxamed maxamuud obow waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha marwo sahre yuusuf cige wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka mudane doctor maxamed xasan maxamed bulaale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane cali ifiye cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane cabdiraxmaan yuusuf cumar alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska mudane cismaan libaax ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane ibraahim maxamed cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda korontada iyo biyaha marwo fahma axmed nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo ugu dambeyntii mudane doctor saciid maxamed cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada wasiirada cusub ee la magacaabay maanta waxaa la farayaa in ay si deg deg ah ay ula wareegaan xilalkooda kadib marka la dhaariyo wasiirada qodobka ugu dambeeya shanaadna magacaabistani waxa ay dhaqan galaysaa marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana lagu soo saarayaa ama lagu baahinayaa warfaafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaana liiska oo buuxa golaha wasiirada oo dhammaystiran mar dhow aad ka raacan doontaan bogga xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ciwaankiisu yahay www.opm.gov.so ayaan soo gelin doonaa liiska oo buuxa markan waxaan jeclahay markaa in miiska halka yaalla wasiirada raalli ahaada salaadina waana haysaa xilli kululna waa la joogaa waxaad dhidid iyo maaragtay iga baxay waad ujeedaan xilli kulul marka waxaan samayn doonaa kolley waxaa jiri doona munaasabad dambe oo ka dambeysa laakiin salaadina wayna haysaa waxaan jeclaan lahaa marka halkii buugga golaha wasiirada halkaa loo dhigay la saxiixi lahaa waanu soo gaabinaynaa laakiinse waxaa golaha wasiirada oo dhan ay geli doonaan oo uu hogaaminayo wasiirka koowaad ra-iisul wasaare xamse sawir guud oo maaragtay golaha wasiirada oo dhan ah marka waxaan jecelnahay sawirkaasi brotocoolka in la ilaaliyo oo safsaf loo kala galo wasiir dowlayaasha ayaa marka hore soo istaagaya halkan kadibna wasiir ku-xigeenada soo istaagaya wasiir dowlayaasha ugu dambayna wasiiradaa soo istaagi doona iyo prime ministerka marka koowaad wasiir ku-xigeenadan aan brotocoolka aan ku marti qaadayna inay halkan soo istaagaan si saf dheer loo galo kadibna wasiir dowlayaasha ku xigi doona kadibna wasiirada iyo prime ministerka iyo ku-xigeenkiisa wabilaahi tawfiiq soo dagaali
wax fadlan wasiirada kaliya baxaya dadka kale ha joogaan inta aan wasiir ahayn ha haraan fadlan